ugu qaaday maraakiibta ilaa iyo hadda ma cadda cidda weerartay iyo sababta loo weeraray maraakiibtaas waxa lagu soo waramayaa shirkadaha mas'uulka ka ah sida warbaahinta u sheegeen in lala eegtaas markii dhibaatadaas soo food saartay waxay la xiriireen ciidamada badda Mareykanka ee fadhigoodu yahay wadanka Bahrain kuwaas oo u diray markab dagaal dhacdaas waxay ka dhacday meel u jirta 24 kilomitir xeebaha dalka Iran isla markaana u jirta 100 kilomitir magaalada Fujairah ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta wadanka Cumaan waxa uu sheegay dhacdaasi bacdama ay ka dhacday biyaha wadanka Iran inay kala shaqeynayaan dawladda Iran sidii xog dheeriya looga heli lahaa arrintan waxay ku soo aaday xilli hogaamiyaha ruuxiga ah ama hogaamiyaha sare ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei uu la kulmay ra'iisul wasaaraha wadanka Japan Shinzo Abe oo dhexdhexaadin doonaya inuu ka dhaxsamayo dalalka Mareykanka iyo Iran wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iran Shinzo Abe uu maanta ku sugan yahay wadanka Iran isagoo halkaas wada hadal kula leh hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaas si uu xaaladda u dajiyo isla markaana ugu qanciyo Iran iyo Mareykanka labadooda dhinacba inay aqbalaan gogol uu Japan u dhigo si xaaladda loo dajiyo hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu ku tagay booqasho horaantii bishan wadanka Japan waa aqbalay dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha Japan waxaana uu sheegay Mareykanku inuu diyaar u yahay wada hadal hadii dhinaca Iran ay aqbasho inay soo fariisato miiska wada